way yaraatay dhalashadoodiina way badatay saddexdaa marka la isu geeyo raggii way ka fara badan yihiin wey sidaa daraadeed baa wadamada caalamka daraasadaha lagu sameeyay marka laga reebo saddex wadan wala adduunyada jiraba dumarka ka badan ragga mar walba saddexda wadan waxa weeyaan waa Shiinaha iyo Hindiya iyo wadamada khaliijka da wax la yaabo maaha ummad badan oo Soomaaliya baa joogta marka dadka ku nool meesha la tiriyo dad soo shaqo tago ciidan ka badan oo xaasas wadan baa ku ururay oo adduunyada lacagta soo eegtay marka taasi dhalashadii maaha waa dad ku soo ururay China iyo Hindiyana waxa yareeyay dumarka wixii abortion-ka la oran jiray lagu sameeyo wala soo ridaa marka la ogaado inay inan tahay way soo tuuraan arin macruuf ah oo adduunyada cid waliba ka hadasho oo dhakhaatiirtoodu ka hadlaan marka soo rididii hablaha ayaa badatay iyo dilkii sidaas ay yaraysay qodobka saddexaad waxa weeye tacadudka ama in mid ka badan la guursado diimaha dhan bay ku sheegnaydba diimaha samaawiga ah ee Ilaahay uu soo dajiyay oo dhan bay ku sheegnayd bal wax mid kaliya sheega quraankaaba jirada kuwa kale oo dhan ka badan baa bay sheegi jireenba arinta afraad jirta waxa weeye shaygan la yiraahdo tacadudka waa shayga cadaaladda ah dumarka la qaba iyo kuwa aan la qabin waxa in tiradii la kordhiyaaba cadaalad ah waayo waa wada bani aadam ummadii bay ka wada mid yihiin haddii muslimiin la yidhaahna waa wada muslimiin marka ma cadaalada in la yidhaahdo dumarka qaarkood nin ha heleen aqalna ha heleen ubadna ha heleen qaarkoodna waa siday u badan yihiin banaanka ha iska joogaan oo sidii Ilaahay uu ku abuuray ku dhasheen ha ku dhintaan haddaba laba qof labadaba waa bani aadam marka cadaaladu ma in dadkii sida loo kala reebaa oo qaarna la qadiyo qaarna wax la siiyo mise waxa weeye in la yiraahdo wax wada qabo waa aad waxa la wada qabo ma cadaaladu waxa weeye waxa wada qabo gabadh waliba waxay u baahan tahay inay ninna hesho aqalna hesho ubadna hesho oo raaxa ku xisaabtan loo rasmi ah hesho raaxa rasmi ah inay hesho raaxada rasmiga waa xalaash barigi dagaalkii labaad adduunka waa kii Jabaanku Jarmalku dadkii aad u madhay buu kamid ahaa dumarkii baa aad uga batay raggii oo saddex jeer baabay ku soo laba laabneen gabadh professorada oo reer Almaaniya ah reer Jarmalaba hadlayso waxay lahayd inaan nin rubuci helo ayaa iga roon rafaadka kalida kaliintan aan joogo rafaadsanay laakiin ahsan waxa iga inaan mid rubuci helo waa xaqiiqadii ay soo taabteen waxa faa'iidooyinka iyo sirta ku jirta ay tahay yuqallilu al-fawaahish waxyaabaha sinada la yiraahdo waxay ku yaraataa guurka oo la kordhiyo oo dumarkii banaanka iska joogi lahaay rag la'aanta ku dhici lahaa ila baahi bani aadam baa ku abuuranay haday guur xalaal waayaan sina dhic ayaa dhacaysa wana arinta aynu ogsoonahayo tacadudka iyo dumar tiro badan in la xidhiidho adduunyada cidiidani ma jirto gaaliya islaamba waa la wada ogoliyay laakiin islaamkuna wuxuu ogol yahay in tiradiina afar lagu koobo oo aan la dhaafinin afarta iyo 2 ilaa 4 na xalaal lagu xidhiidho iyo guur rasmi ah laakiin ummadaha gaaladu way ogol yihiin ama 10 ha ahaadeen ama ka badan ha ahaadeen tacadud in la sameeyo laakiin sina iyo xaraana oo imka ninku xabadun bay leeyin guurso laakiin hadduu yiraahdo 6 baan la saaxiibahay ama 10 ka kordhi bay leeyin hadaa doonayso soo ismaydaan ogolaan miyaad qasabtay maya ku waduun meesha doonaysa gaarsiiyo saaxiibadu ma xadidna way kuleeyeen sida daraadeed ba dadka wadamada muslimiinta jooga wadamada gaalada jooga muslimiinta ah qaarkood ba haduu mid guursado ka badan mid oo mesela 3 leey ama 2 leey mid buu sheegayaa dawladda inay tahay tii mehersanayd rasmiga ahayd labadan kalena maxay ahayn waa saaxiibada buu leeyahay ma saaxiibada ahaayeen sax weeye bay kuleeyeen marka la iskuma diidana in tiradii la kordhiyo laakiin xalaal ha noqoto tiradu iyo xaraan ha noqoto weey xaraan ha noqotona waxa ku hoos jira ooridii xuquuq ma leh aqalna ma leh ubadkiina cid ay ku abtirsadaan ma leh intaas ka soo hoos baxday marka waxa weeye adigu xaraantana iska daa xalaashana iska daa xaraantana inoo
si kale marka loo eego eegmadeena islaamiga ah takhiir lilumma alislaamiya baa ku jira ummadda islaamku siyaabaha ay ku kordhi karaan ayuu tacadudkaasi ka mid iyo had iyo jeer ummadaha ama qabaa'ilka tacadudka sameeya ee dumar dhowra guursada way ka fara badan yihiin ummadaha midka ku eeg bal adduunyadii gaaladu imika waxay ka qaylayaan muslimka soo badanaya ee ama dumar kororsan guursaday ama dhalmadooduba ay badan tahay nebiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dumarka raggooda jecela dhalmada badan guursada ummadahan idinku faanaya faa'iidada ama sirta toddobaada ku jirta waxa weeye waa cilaajun lilcunuusa waxaan la yidhaahda guunnimada dawadeeda wey inay habluhu iska guumoobaan dee dawadeedu waa tacadudka iyo tirada oo waxaa la xadhkageel ma wada xidhaan baa layihi hadday wada xidhaanna ma wada xejiyaan ragoo dhami dumar ma wada guursan karo inta wax guursan kartaa waa in kooban marka intii koobnayd kuwaa ku egaato marka la idhaa intii kale way iska guumoobayaan sidaa aynu hore usoo sheegnay caalamulislaami markaa dib ugu noqoto ama xataa caalamulcarabi wadamada qaarkood baa guurku uu noqday 10% guur la-aantuna ay tahay 90%. labada wadane jaarka ah ee falastiin iyo lebnaan guurku falastiin waa 95%. 5 baa guur la da-dii guursan karaysa halka lebnaan 90% guur la-aan dhalinyaradu ay ku sugan tahay marka cunuusada iyo guunnimada ragguna guun baa lagu tilmaami karaa dumarkuna way noqon karaane dawadeedu waa halkan bidhun baa isweydiin loo waateenu soo nidhi dumarka geeridooda maaragtay yaroo dee cimrigoodu waa dheer nebiguna waaba ka sii warramay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka waxaa iman doona wakti buu xadiidku waa saxiix wakti oo 50kii dumar ahaa hal nin uu ku beegmi doono oo dumarkaasi waa kuwii uu dhalay kuwii uu xaasiska u ahaa eedooyinkii habaryarihii ayooyooyinkii waxaasuu dhex taagan yahay waana midh keliya sababaha keenayay ka hadleen daraasadaha hadda la sameeyey gaal iyo islaamba waxaa laga hadlay sababaha keena inuu cimriga dumarku dheeraado oo waxay yidhaahdeen jihaaskan manaaciga ama difaaca had iyo jeer dumarka ee habdhiska jidhkooda waxa weeyaan mid aayar socda oo aan daadegin sida ka ragga oo raggu marka uu hore cimri si yara cimriya ee daadiisu ay si yara weynaato difaaciisu degdeg buu yaraadaa u daciifa dumarku laakiin difaacoodu dhaqso uma lume ee uu iska xoog badan yahay qofkiioo difaaciisu uu joogaana waxay sheegaysaa in noloshiisii iyo dee awooddiisii jirto quluubu nisaa aqwa min quluubi rijaal bay dhaha marka la weynaado dumarku ay dhaafaan heerkaa dhalmadayska wadnaha dumarkaa ka xoog badan bay dhahaan wadnaha ragga ilaa uu u egaado marka dambe waa diraasada ingiriisku sameeyeen qaar ka mida baaxiiinihii ilaa 25 jir inan 25 jira ayay hooyadu marka ay dhalmadayso ayay la awood noqonaysaa marka dambe xagga wadnaheeda yaabku u shaqaynayo arinta saddexaad keenaysa in geeridu yaraato ama cimriga dumarku u dheeraadaa waxa weeyaan bay dhahaan suluukul mar'ati sixiyan afdalu min الrijaal habkay dumarku u dhaqmaan caafimaad ahaan wuu ka wanaagsan yahay ka ragga oo iyagu inta badan way isdaaweeyaan ama waaba loo dadaalaa waa la daaweeyaa dumarka iyo caruurta geedka rag la yidhaahdaa wuxuu dhakhtar tagaa markuu soo dhaco markay naftu qabataa unbuu leeyahy baryahan waan il darahaye bal haddaan dhakhtarka tago dumarka iyo caruurta laakiin way iyaguna aad bay u dadaalaan way isla socdaan oo way isdaweeyaan suluugaasina waa arrin keeni karta bay yidhahdeen jiritaanka qayb ka noqon karta waxay yidhahdeen almar'atu aqalu mumaarasatan lilcaadaati sayi'a khataraha ragga iyo dumarka khatartu iyamay ku badan tahay raggay ku badan tahay dagaalada waxa gala waa ragga gaadiidka iyo shilalkooda aad u fara badan meel kasta oo khatarahoo lagu dhinto dee dhimashada ilaahay baa haye haddana khataruhu raggay ku badan yihin dumarka waa ku yari waxay yidhaahdeen oo kale almar'atu ashaddu taxamulan lilamraad liikhtilaafi khalaayaahunna min khalaaya arijaal unugyada ilaahay uu ku abuuray rag iyo dumarka marka la eego dumarka adkaysin badan bay dhahay xagga cudurrada waa laga yaabaa inuu dee ilaahay u diyaariyey ilaa waa warshad dad soo saaraysa warshad dad soo saaraysa qof bani aadam qof ku dhex nool yahay weeye marka inuu awood dheeraada iyo antibayn iyo xanuun bi'iyo dheeraada yeesho qof oo jidhkiisu sii daynayo waa wax ilaahay u gartay subxaana wa tacaala
waxa laga yaabaa islaantaada intaa xanuunka hayse iskala taa hayse kugu shaqaynaysa haddii adiga uu kugu dhaco inaad dhakhtarkaba tegi lahaydba iyadu way iskala luudaa inteeda waanay kugu adeegaysa laakiin haddii inteedaasi kugu dhacdo caawa waad kala wareegaysa marka xumad jabinteeda ay wadatay ay fraasaadka dheecaamadu jirku sii daynaya iyo difaac tamarta ilaahay u siiya taxamulkaba way ka badan waxa kale sheegaan nimanka wax baaray dumarku had iyo jeer mundu siqar ila alkibar markay yariin ilaa markay weynaadeen waxay badsadaan bay yiraahdeen oohinta iyo ilmada ka imanaysa waa wax lagu nafisi kara bay yiraahdeen oo wax ka caawinaya bay waa say u yiraahdeen cimri dhererkooda laakiin geedkii ragga la oran jiray oohintii iyo ilmada de wuxuu haystaa wax fulaynimo ah oo kabti buu isku sameeyaa uu iscaburiyaa iscaburintaasina qaraxiisa qayb ka tahay ilaa 6 shay bay sheegeen asbaabta keenaysa in cimriga raggu uu ka gaabto cimriga dumarka wax la yiraahdo mawsuucatul buldaan baa jira oo akhbaarta lagu sheego adduunyada sida had iyo jeer dadku ay u kala cimri dheer yihiin ummadaha mar walba raggu uu ka cimri yar yahay xagga dumarka ilaa 5 sanadood 6 sanadood buu cimriga ka yar yahay hala yaabina reerkiinu warayso waxaad arki doontaa odayaashiina inay wada dhinteen islaamihiina wada joogaan taa waxaad ku garan karaysaa geeridu say ragga ugu badantay ama magaalada wadada xabaalaha u baxda un istaago jinaasadaha warayso marka liisna ka diyaari waxaad arki doontaa geeridu inay ragga ku badantay waa xigmad ilaahay subxaanahu wa tacaala si kale haddii loo eego xagga taranka markay labaduba qaan gaadhaan rag iyo dumar ruuxa dumarka ah muddaday tarmi kartaa way koobantay waqtigay soo dhalmadaynaysa de ka soo qaadanay 40 ku dhalmadaysa hadday 15 ku qaan gaadhay 40na ku dhalmadaysa imisay dhali karaysa sanadood 40 15 ka jar 25 sano 25 sano de ma wada dhali karayso waayo marka ay uur leedahay miyay dhali karaysa ma dhali karayso markay caado leedahayna de uur ma qaadi karto ma dhali karayso waqtiyada umusha tahayna ma dhali karayso intaana marka laga sii jaro sanadaha ay jaanis haysatayna dhashaawu yaryahay laakiin kii ragga ahaa markii uu baalugu 15 gaadhay ilaa 80 habeen walba uu dhali karaya marka xigmada tarankuna waa wax iska suuragala almuhim wuxuuna inu ka eegaynaa xagga cilmiyan laakiin qofkii de cadaaladda quraanku sheegay sameyn karayaana uu dhaqaaqi doona kii kalena xaaskiisa ayuu maaragtay iskala noolaanaya u dadaalaya mar walbana 2 qof ama 3 qof oo la dulmiyo intii la isdul saari lahaa mid kale oo loo cadaalad sameeyaa baa sax taana intaasaynu cidii ka xanaaqi lahayd ku qaboojinayna mar walbana islaamku wuxuu yeela facala ra'si wal ayn ilaahay rasuulku kol haday yiraahdeen waa aqbalay iimaanka saxda ah sidaas